guul weyn bay ahayd iyo in xasradii geeska Afrika oo aad looga walwalsanaa xasrad xooggan inay ka dhacdana inay xoogaa halkaas arrintii ku saabsaneed ee mooyooga inay halkaas lagu khafiifiyey marka runtii guul weyn bay ahayd oo ku soo aaday xilligii Security Council-ku noo bilaabanayay iyo diblomaasiyaddii oo inta aan isticmaalnay inagoo dareemayna in nala ku soo gardarooday haddana inaan qaab diblomaasi ku xalina arrintaas oo ku soo gabagabaynay maalmo ka hor arrintaas iyaduna waxay kordhisay kalsoonida Soomaaliya lagu qabi karo ama lagu qabo iyo inay Security Council-ka mashaakilaad badan oo dunida ka tirsan ay qayb ka noqoto inay xalkoodii guud ahaan shaqaalaha sida lagu sheegay waa runtii duruuf adag bay ku shaqeeyaan dalka dibaddiisa waa la ogyahay sidii ay ahaan jirtay ama sida sharciga Foreign Service Law-ga hadda 2013 la ansixiyey dowladdeenu ansixisay waxaa ku qoran safiirka iyo diblomaasiyiintu يعني privileges ka ay leeyihiin iyo waxa ay leeyihiin guriyaha fasaxa tigidhada mushaar ku filan oo nolosha waddanka ay joogaan ku jaango'an waxaasoo dhan hadda ma jiraan marka runtii waxaan is dhihi karnaa inaysan ka duwaneyn askarta Soomaaliyeed ee dhufaysyada ku jira maalin kasta qorraxda iyo duruufta adag la daala dhacaya inaanay ka duwaneyn diblomaasiyiinta Soomaaliya u shaqeeya oo wadan hebel bay ku nool yihiin macnaheedu ma ahan inay nolol fiican iyo wixii loo baahnaa oo dhan ay haystaan sacrifice xoogan bay sameeyaan guntiga ay dhiisha ka dhigaan shaqo adag oo runtii xoogan bay ayay hayaan iyagoo wax aan la ekeyn guri kiradiis xuquuqdooduna ay tahay marka duruuftaas adagna waa meeshaan kale inaan ku sheegno weeye New York qofka ku nool oo مثلا $1,500 qaadanaya waa la ogyahay xataa inaysan dhammayn xataa sariir yar meel u dhigto xataa ma dhammaan iska badaa inay wax ka weyn ay u tarto noloshiisii iyo qoyskiisii iyo xaaskiisii iyo carruurtiisii inuuba wax ka sii iska daayay marka dib baan rabnaa runtii in loo eego dalbanaynaa dowladdu inay u eegto diblomaasiyiinteena dibadda ka shaqeynaysa shaqaalaha gudaha waxay la qabaan shaqaalaha kale la qabaan wax gaar oo ayaga hadda oo maaragtay loogu yeerayo ma jirto laakiin dibaddu waxay u baahan yihiin dib oogis xoogan miisaaniyaddii waa soo bandhignayaan dhaweyto laakiin dalka duruuftiisa iyadoo maaragtay la xirinayo waxba lagama soo qaadin laakiin waxaan rajaynaynaa in advocacy fiican maadaama soo booqatay maanta meeshaan inaad ka mid noqotid oo waliba xambaartid calanka diblomaasiyiinteena dad badan baa halkan ka soo shaqeeyay oo dibadda ka soo shaqeeya fadhiya way ka warqabaan iyadoo saasay tahay saadana mararka qaarkood la leeyahay dadkii waa isku dilayaan halkan xafiiskii waa la fadhinaya waa ogta iyadoo duruuftaasi jirto ayaa haddana dadkii ay socdaan oo bal igu qor aniga maaragtay waxaan raba ka keensanaya meeshii noocaasna waa culaysaasna waa jiraan marka ra'iisul wasaare soo dhawow guud ahaan wasaaraddu shaqooyinkaas aad aragto baaxadda weyn bay qabataa waa wasaarad laga ilaaliyey hay-aduhu inay caawiyaan si go'aamadeedu ay u madax bannaanaadaan taasay wasaaradaha kale badankoodana uga duwan tahay wax project iyo hay-ad dowladeed hay-ad dibadda ah oo intervention yar ku samayn kartaa ma jirto ama ku leh ama loo ogol yahay shaqaalaheedu inay lacag ka qaataanba taas way iga soocan tahay marka project iyo hebel iyo waxaas ma daba ordo waa nabad sugidda iyo ciidanka wasaaradda gaashaandhigoo kale ay la mid tahay si qaraaraadkeena ugu madax bannaanaano waa inaan isku filaanaa marka wasaarad saas u ictimaadaysa weeye